bilow adigoo magacaaga ku bilaabayo iyo waxa aad tahay iyo maaragtay waxa dhibaatada kugu dhacday iyo gurigan burbursan dhex taagan tahay magacaaga ku bilow anigoo ah Axmed iyo laba xidigle Axmed iyo ka tirsan ciidanka qaybta 12 Abriil oo khayra 36 waxaan deganay halka aad hadda u jeedaan ee carruurta ay jiifadaas oo ay ku farsayiin galab ay tahay 14 bishaan hadda aan ku jirno 18 maanta ay ka tahay waxa ay soo weeraray gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Yariiso anigoo jiifkayga wax aan ogahay ee dhibaato ee aan geystay aysan jirin wax digniin hooleysi aysan jirin waxaan ka war helay baala guriga qadacinaysa haddaan soo baxay banaanka aan soo istaagay waxaan yiri mar maxaa dhacay dhibaatadana intay ku timiday waxaa leeyiri banaanka istaag maxaa kaaga jira waxaan yiri guriga wax allaala waxaan ku noolahay dadkii deeqii hayba ku jiraan hayta maxaa ka jira aan soo ujeedin waan hadda diga soo bixisaan waxaa leeyiri kala soo bax way ku jira guriga waa aan galay waxaan ka soo saaray bustoolad iyo laba qasnadood waa lay dib dhaafacna waa ka daba naqday waxaa la iga soo qaaday lacag ku jirta barkinta hoosteeda oo ah 8600 doolar iyo milyan shilin Soomaaliya lacagta waxaan lacag banaanka nimaday waxaan ku dhahay lacagta mas'uuliyiinta idin wada ee hadda hor joogta aan u dhibto sidii haddaan Yariiso baa wuxuu mataqaanaa amar ku baxshay in la dilo amar la siiyay askartii way garaaceen lacagtii waa la qaatay mobilada waa la qaatay gacantaasa ku birim foostaman aan dhahaayay waraan lacagta aan gudoomiyaha u dhiibto ayadaa liif lagu garaacay saasay u jeexantay jir ilaa dhabarka dambo ilaa lugaha aan ku taaganahay meel aan nabar ku aalo kuma jirto ool waxa lagu dhiftay liif iyo baad shaatiga haddaan siiba wixiiba Soomaaliya hadda qasho Soomaaliya ku jirta idaaba yaabaysa hadda laakiin waxaan si gooniyan u tusay wariyahan maahan hadda kuma soo dirin muuqaalka waxaan codsanayaa dawlad codsiyaan u diray mar labaadaan u diray waxaan tusay carruurteedii waxaan tusay meeshay ku nool yihiin waxaan shalay ku noolaayeen nolol wanaagsan ee nolol Soomaalinimada dadku intay mataqaanaa u badan yihiin maanta laakiin waxay taagan yihiin saara male maaxuunay wax ku cunaan male hoy ay ku idaan male jiif ay ku jiiftaan male meel ay xulflahay roobkan taahad u jeedin ay ka galaan waa kuwa gadaashayda taagan dad saraakiil Soomaaliyeed dad Soomaaliyaha wax soo aruursho meeshan noo keenay maanta waa mahadsan yihiin dadka Soomaaliyeed soo gudbay laakiin dawladda waxaan ka codsanaynaa maanta waxay joogtaa maalin ay ninka ragga ma hay xukumeen nolol aan hadda sii raadiyo ima nolol aan hadda maanta sii raadiyo iyo muuqato sababtay tahay dadkaygii oo wax aan qaban karaa aysan jirin oo hantidoodii wax la dhigay oo goolmaad u tira dhigay jiifkii xataa lagu jiifanay waxa ku jira meesha adkeedaan qalbiin raashin ma yahay waa ku jira markii xataa ilmuhu ay ku idirabaan meesha ku jira wax mataqaanaa u dhiman ee Soomaaliyeed qof Soomaaliya ku dhicinayo ima dhiso aniga saddex joorna meesha hadda aad u jeedaan cadawga markii laga bixilaayo maraan ku dhaawacmay mar kale waxaan ku dhaawacay jubbo gudoomiyaha gobolka Banaadir intaas wuxuu joogay Yurub uu jiray oo dibadda uu jiray ilmihiisina waa jiraan maanta ma anfacayso inuu carruurteydii haweenkayga bartaas soo dhoobo asagu dego asagu hotel degay mukayf ku dhex jiraa ma anfacayse haddii dawladdu jirto waa in sharcina kala saaro haddii kale ma suuragelayso inuu nolol wanaagsan ilmihiisu ku noolaadaan anagu jeegada dhexdooda ku jiraan sida baahli asagaana geeyay meeshii hadda maanta taagan yihiin وما صنتها لو حدق لأحمد بيولي waxaan noo sheegtay in uu kugu soo weeraray Yariiso guri aad ka degantahay degmada Cabdilcasiis eerida Kawaanbari halkaas oo saacadu markaas waxay ahayd saacad casr liiq ah amba maartay 9 saac ama 3 galabnimo sida Soomaalidu u taqaano waxay ahayd waqti Ramadaan ah ay maartay ummaddu afarka diyaarsanayso xilligii ciidanka ku iimaanay waxaad noo sheegtay in halkaasi ay maartay afur iyo wax ay la diyaarinayay ayadoon wax tixgelin ah amba maartay hadal ah dhaxmarin laakiin aad ka war heshay dagaal iyo hal diro gudoomiyaha gobolka Banaadir ma u sheegtay inaad tahay nin sargaal ah oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka gudoomiyaha gobolka Banaadir
inaan afkaygu gaaro waa lay ogolaa laakiin saraakiisha ciidanka wataan waxaan u sheegay inaan nin sargaalo ahay halkaana aan deganahay waqtigaana waqti ka horreeyay digniin leysi aysan jirin dhibaatadan inaan lay gaarsiin oo nabaduna kala dhex marto sida afkayga haddii ka dagaalamo lagu bilaabo wax kaleetood oona dhex maray oo ilaahay abuurto oo digniin oo leysiyana ma jiraan waxa qof isoo dacweysay shakhsi yahay meeshaan dacwaan ku qabnaa tiraan ma aysan dhicin oo hore uma dhicin hatta qof dacwo ii qabtaa ma jirto kaligii gurigankayga gudoomiye wuxuu ku warbaxshay sida la sheegay oo media ka dhageystay iyo si baasaan laygu soo sheegaba meesha inay deg u tahay dan gurigayga kaliya ma ahane haddii deg u tahay waxa ahaale dirbigaan kala sheedaa guryahaas baa igu yaalla meeshaan uu saraha ku yaalo jeedin gurigaaskayga danguud kaligiisa dow yahay dowladdu waa inay cadayso haddii kaleetood arrintan waa in dowladdu wax ka qabato waana beegsi umana dul qaadanayo maanta wixii ka dambeeya waa noo dagaal Soomaaliya ha ogaato dawladdu ha ogaato caalamkuna ha ogaato biritu haddii wax laga dhihi lahay arrintan waxay ku dhacday ninkan waa dambiil la dhihi lahay maanta wax ka qabashay leedahay